waxa uu damacsanaa inuu qani ku noqdo quudka loogu soo dhiibay dadweynaha, waxa uuna rajeynayay inaysan cidi ogaan doonin falka uu ku foogan yahay, balse si lama filaan ah ayaa loo fashiliyay loona fadeexeeyay, waxuuna madaxweyne Traore amray in loo taxaabo xabsiga kadib markii lagu helay dambiyo waaweyn. Maxaa dhacay? Intaan u gudagelin sheekada, fadlan daawada ku soo dhawow channelka oo ku sali nabiga, kuna soo biiri channelka haddii aad nagu cusub tahay. Waxay ahayd dharaar kulul, goobtu waa gobolka Kaya, magaalada Samatenga ee bartamaha dalka Burkina Faso. Waxaa gobolkaasi ka jiray xaalad cunto yari ah, maadaama uu dalku saarnaa cunaqabatayn xooggan oo caalami ah oo dhinac walba ah, waxaana aad u adkaa in dadka ku nool gobolkaasi ay helaan raashin ku filan, iyadoo gobolkaasi laga soo warinayay macluul baahsan. Gobolkaasi sanado ka hor waxaa laga xoreeyay kooxaha xagjirka ah oo muddo ka dagaalamayay sidoo kalena haystay, waxaana dowladda Burkina Faso u qoondeysay in la gaarsiiyo dadka ku nool gobolkaasi raashin, isla markaana loo qaybiyo dadka si looga samata bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Taariikhdu markii ay ahayd 24 bishii November, waxaa magaalada Ouagadougou ka soo baxay gaadiid siday sixnad gargaar ah si loogu qaybiyo dadka ku nool gobolka Kaya, waxaana sida caadiga ah gaadiidka ay raashinka siday soo sagootiyay madax ka mid ah dowladda Burkina Faso oo uu ka mid yahay wasiirka deegaanka iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana maalmo kadib magaalada Samatenga soo gaaray gurmadkii ay dowladdu u soo dirtay, waxaana sida caadada ah lagu wareejiyay guddoomiyaha gobolka oo lagu magacaabi jiray Cusmaanu. Si habsami leh ayuuna u guddoomay gaadiidka raashinku saarnaa ee ay dowladdu soo dirtay, waxaana halkaasi raashinkii lagu xareeyay kadadka weyn ee uu gobolka lahaa ee bakhaarka, waxaana maamulayay raashinka iyo shixnadan guddoomiyaha gobolka oo ahaa nin ku suntan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin baahsan. Walow aysan dowladdu ka shakisanayn, haddana dadka deegaanku aad bay u yaqaaneen uguna warhayeen ninkani sida uu ula tacaamulo bulshadiisa. Dadka deegaanku waxay u badnaayeen xoolo dhaqato iyo beeraley, waxaana la sheegay in gobolkani ay ku noolaayeen in ka badan 120,000 oo qof oo ah bulsho isugu jirta beeraley iyo xoolo dhaqato. Kadib maalmo badan oo uu raashinku halkaasi yaalay, waxa uu bilaabay guddoomiyaha gobolka inuu ka iibiyo dadkiisa raashinkii ewel loo soo dhiibay ee ay dowladdu deeq ahaanta ugu keentay. Waxa uuna heshiis la galay ganacsatadii ugu jeebrooned ee ku sugnaa gobolkaasi, waxa uuna bilaabay inuu ka sameeyo lacago waali ah isagoo adeegsanaya qaybo ka mid ah bulshada si uu raashinka ugu iibgeeyo. Waxa uuna ku dhaqaaqay inuu ka ganacsado adeegii loo qorsheeyay dadweynaha. Waxaa ka sii daray xaaladii gobolka, iyadoo marba ka dambeysa ay warbaahintu sheegaysay in xaalado adag oo khatar ah ay ka jiraan gobolkaasi, iyadoo laga soo warinayay dhimasho, sidoo kaletana gobolkaasi ay ka imaanayeen cabashooyin tirabeel ah. Bilo kadib, mar uu madaxweynaha qaranka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traore uu booqasho ku tegay isbitaalka weyn ee magaalada Ouagadougou, ayuu kula kulmay madaxweynahana loo sheegay inay halkani yaalaan dad ka yimiday gobolka Kaya, sidoo kalena la ildaran nafaqo-darro baahsan, iyadoo tiro ka mid ah oo u badan carruur ay geeriyoodeen. Waxa uuna madaxweyne Traore go'aansaday inuu gobolkaasi u diro khubaro caafimaad oo ka warkeena kiisaska laga soo warinayo gobolkaasi si looga hortago isla markaana loola tacaalo dhibaatooyinka badan ee gobolkaasi ka imaanaya. Guddigii ay xukuumaddu u dirtay gobolkaasi ayaana booqday gobolkii markii ay tageen oo ay ku sugnaayeen maalmo, sidoo kalena ay indhaynayeen kiisaska caafimaad iyo xaaladda adag ee ka taagan halkaasi. Mar ay booqasho ku joogeen xarun caafimaad oo MCH ah oo ku taalla gobolkaasi, ayay bulshada deegaanku u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan oo ay qabaan ay tahay in raashin la'aan ba'ani ay ka jirto halkan, iyadoo raashinkii la soo gaarsiiyay gobolka uusan weli soo gaarin dadweynaha. Waxayna fariintan u gudbiyeen xafiiska madaxweynaha, iyaga oo sheegay in haddii aan si degdeg ah gurmad loogu soo gaarsiinin dadkan amaba looga furfurin dadka ku haysta xoogga, ay halkani ka dhalan karto xaalad caafimaad oo daran. Maalmo kadib, madaxweyne Traore ayaa xiriir la yeeshay guddoomiyaha gobolka, isaga oo khadka taleefanka ku xog wareystay xaaladda gobolka, waxuuna guddoomiyuhu u sheegay in sidii loogu talagalay oo qorshuhu u socdo, sidoo kalena xaaladdu ay fiican tahay. Waxuuna madaxweynaha ka codsaday in gurmadkii hore uu ku filnaan waayay maadaama dadka gobolkani ay yihiin dad aad u badan, sidoo kalena ay u baahan yihiin in dowladdu ay u soo dirto gurmad kale. Waxuuna madaxweyne Traore isaga oo qiimeynayo
dadka ku nool halkaasi iyo xaaladaha caafimaad ee laga soo warinayo, uu aqbalay go'aankiisii isagoo u sheegay in dhowaan uu soo gaari doono gurmad kale. Kadib maalmo is-xigay oo cabasho tiro beel ahi ka imaanaysay dadka, wuxuu madaxweyne Traore go'aansaday inuu la damqado bulshadiisa, isla markaana uu booqdo sidoo kalena uu kormeer ku tago gobolka isagoo iska hormarin wax wafdi ah. Wuxuuna madaxweynuhu raacay kolonyo uu la socday gurmadka shixnada gargaarka ah ee loogu talagalay gobolka. Isla maalintii uu madaxweyne Traore soo gaaray gobolka, waxa uu booqday xarunta gobolka isagoo halkaasi kula kulmay sidoo kalena uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Cusmaanu. Waxa uuna ka codsaday inuu geeyo bakhaarka si loo dejiyo raashinka, maadaama madaxweynuhu uu doonayo inuu kormeer ku sameeyo xaaladda ka jirta gobolka. Waxa uuna gudoomiyuhu iska indhatiray, sidoo kalena uu ka cudur daartay inuu madaxweynaha halkaasi gaarsiiyo, isagoo sheegay in bakhaarka ay ku dhasheen cayayaano badan maadaama raashinku uu mar hore ka dhammaaday, sidoo kalena uu u baahan yahay in dib loo hagaajiyo oo xoogaa la sugo. Sidaas darteedna aysan waqtigaani macquul ahayn in madaxweynuhu uu booqdo halkaasi. Balse madaxweyne Traore oo ka shakisan gudoomiyaha hadalkiisa ayaa si aan go'aan lahayn uga aqbalay codsigii, isaga oo madaxweynuhu amray in beriba la dejiyo raashinkan isla markaana la gaarsiiyo bulshada. Maalintii xigtay, madaxweyne Traore ayaa soo gaartay fariin sheegaysa in gobolkani xaalad adag ay ka jirto, isla markaana gurmadkii hore ee dowladdu soo dirtay uusan gudoomiyuhu gobolku soo gaarsiinin dadka ku sugan gobolka, isaga oo la sheegay inuu si gaar ah ugu iibsaday ganacsato ka socota gobollo kala duwan. Madaxweynaha ayaana maalintii xigtay amray in la jebiyo bakhaarka raashinka iyada oo aan la ogeysiinin gudoomiyaha gobolka. Sidoo kalena madaxweynuhu halkaasi oo kormeer ku tago si uu u indho-indheeyo xaaladda ka jirto. Madaxweynaha Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traore ayaana booqasho ku tegay bakhaarkii raashinka oo ay dhex eegaagaan raashin aad u fara badan, iyadoo gudoomiyuhu horey u sheegay in raashinku uu dhammaaday. Markii uu arkay xaaladda ka jirto halkaasi, madaxweyne Traore aad ayuu uga carooday. Waxa uuna amray in dhammaan dadka la isugu keeno deegaanka magaalada bartamaheeda, iyada oo la shaaciyay in madaxweynuhu uu halkaasi ka jeedin doono khudbad si fagaare ah. Wuxuuna madaxweyne Traore amray in la keeno gudoomiyaha gobolka, isaga oo sheegay in halkan looga abaalmarin doono khaladaadka uu ku sameeyay bulshada dhexdeeda. Wuxuuna madaxweyne Traore amray in la hor keeno gudoomiyaha gobolka dadka deegaanka hortooda si looga xisaabiyo khaladaadka uu kula kacay iyo khiyaanada weyn ee qaranka uu sameeyay. Waxa uuna madaxweynuhu sheegay in hadda kadib gargaarka ay dowladdu u soo dirto si nidaamsan loo diiwaangelin doono, sidoo kaletana loo gaarsiin doono qof walbana xaqiisa loo siin doono dadka ku sugan gobolka Kaya ee ay abaaruhu saameeyeen. Gudoomiyaha gobolka oo ogaaday inuu fashilmay, sidoo kalena qorsheynayay inuu baxsado, ayaana la soo qabtay, sidoo kaletana la hor keenay maxdarka fagaaraha ee madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay, isaga oo sheegay inuu yahay xabsi, sidoo kalena uu khiyaanay bulshadiisa. Wuxuuna madaxweyne Traore halkaasi ka jeediyay khudbad taariikhi ah, isaga oo dadka u sheegay inuu madaxweynuhu u soo magacaabi doono gudoomiye cusub oo gobolkani uu yeelan doono, sidoo kalena dhammaan ay ka shaqeeyaan midnimada iyo waxqabadka, isaga oo sheegay in cid kasta uu u furan yahay xafiiska madaxweynaha, sidoo kalena cabasho kasta uu qabo uu soo gudbin karo madaxweynihiisa. Waxayna dadka deegaanku madaxweynaha ku sagootiyeen farxad iyo reyn iyagoo ululaya caleemo qoyan oo aad u qurux badan. Fadlan daawade, haddii halkan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada ee nagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaallo iyo sheekooyin xiiso badan.